xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhoolatus ballaaran oo ay ku muujinayaan cududda iyo taageerada xisbiga wadani ku leeyahay magaalooyinka Gabiley ku soo bandhigay fagaaraha khayriyada magaalooyinkaasi aan ku horeeyay magaalada Gabiley ayaa taageerayaasha xisbiga wadani ku soo bandhigeen dhoolatuska iyo taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka wadani aynu ku hubsanno codkeenna xisbiga wadani soo xisbiga wadani u odayno waxaa socota dabaylka daaniya qofka ilaahay inoo soo doora imanaya sanadaa laga soo weerinayaa ka dadaaloo ka fartiinayaan laydinku qaldina doorta inaan wadani doorno aan balan qaadno nagu qasbad calidheere naga daabaa layidhi cadaaladda kulmay waa taa war cadaalad meesha ma taalle yaa waa laguba la isku guurayaa qabiiladu waxba ma tarto dadkun bay kala demisaa waxaynu leenahay kulmiyow way kaa dhammaatee dhiib way kaa dhammaatee dhiib wadan ha ku haysto adaa ka mas-uulu mustaqbalkaaga magaalada keliya ee goobiyo 20 xubnood oo golaha deegaanka leh ee ugu liidata Soomaaliland ee la siman kuwa biiliya siida halkaa waxay nagaadiyeen waa kulmiye ugu khasaaray iyaynu markanbe ugu celinaa dhanka kale taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalo ganacsiyeedka xuduudka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya ee tog wajaale ku soo bandhigay dhoolatuska iyo taageerada ballaaran ee ay u hayaan xisbiga mucaaradka wadani kuwaasi oo socod ku maray wadooyinka magaalada isla markaana ku dhawaaqaya halkudhagyo ay ku taageersan yihiin xisbiga mucaaradka wadani kadib waxaynu noqon doonaa xisbiga wadani wuxuu noqon doonaa xisbiga talada dalka qaranti wadani ha guulaysto walaalayaal qabyaaladda waa taqaanin idinka warreemaayo qabyaaladdu waa xanuun wajaalana caadad sideedaba umay lahayn qabyaalad dad walaalaa oo wada dhashay oo gacmaa is haysta odyadii u talin jiray xalayna waan sheegayey kulmiye waxay ka muuqataa inaad kulmiye barato wuxuu yahay wajaalay ka muuqataa وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسة سوم نيوز TV Gabiley